Barcelona oo xaqiijisay dhaawac soo gaaray Pedri. Kooxda Barcelona ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in xidigeeda qadka dhexe ee reer Spain Pedri uu dhaawac soo gaaray, kaas oo ah dillaac ku dhacay muruqa bowdada bidix. Warbixin uu qoray wargeyska Mundo Deportivo ayaa sheegay in Pedri uu ku soo biiray liiska dhaawacyada Barcelona kadib dhaawac ka soo gaaray kulankii El Clasico ay kula ciyaareen Real Madrid garoonka Santiago Bernabeu. Pedri ayaa laga saaray kulanka daqiiqadii ugu dambeeyay kadib casaan loo taagay dhamaadka ciyaarta, waxaana la xaqiijiyay inuu maqnaan doono ilaa fasaxa ciyaaraha caalamiga ah ee bisha November bartamaheeda. Taasi waxay ka dhigan tahay inuusan ciyaari doonin kulamadan soo socda. Elche, Club Brugge, Celta Vigo, Athletic Club, Chelsea, Alaves, Atletico Madrid, Real Betis, Frankfurt iyo Osasuna. Dhaawac Pedri wuxuu tirada guud ee dhaawacyada Barcelona ka dhigay 8 ciyaaryahan, kuwaas oo kala ah Robert Lewandowski, Rafinha, Dani Olmo, Juan Garcia, Andres Christensen, Gavi iyo goolhaye Marc André Ter Stegen. Si kastaba ha ahaatee, warbixintu waxay tilmaamtay in Lewandowski uu ku dhow yahay inuu garoomada dib ugu soo laabto, maadaama uu ku soo laabtay tababarka guud ee kooxda, isla markaana inuu helo daqiiqado ciyaarta kulanka Elche kadib markii uu seegay 3 kulan ee ugu dambeeyay. Sidoo kale Dani Olmo iyo Juan Garcia ayaa bilaabay tababarka fudud ee ku aadan soo kabashadooda, balse kooxda kuma degdegayso inay garoomada dib ugu soo celiso si uusan dhaawac ugu soo noqon mar kale. Rafinha waxaa la filayaa inuu soo laabto fasaxa xulalka kadib, maadaama uu dhaawacmay bishii September kulankii Oviedo. Fiidnimo wanaagsan saaxiibayaal, meel walba aad naga daamanaysaan. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeenii bandhiga ciyaaraha waan caawa ku soo qaatay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.